الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين ثم الصلاة والسلام على محمد رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أيها المسلمون عباد الله waxaynu la soconnaa maalmahan dambe inay socdaan kulamo fara badan shirar tiro badan ololayaal xooggan kuwaasi oo ku saabsan xulitaan iyo tartan loogu jiro madaxtinimo baarlamaan ama golo deegaan waxaanaynu ogsoonnahay ayuha almuslimuuna cibaad allah qofku inuu dadka muslimiinta arrimahooda mas-uul ka noqdaa inay tahay arrin aada iyo aada u culus waayo waxaa ka dhalanaya waajibaad iyo xuquuq aada u waaweyn madaxtinimaduna waxay wadataa fitnooyin badan iyo aafooyin aan la tirin karin waxay sabab u noqotaa dadka qaarkood inay diintooda seejiso aakhira u sahay qaadashadeedana ay ka jeediso ilaahayna subxaana wa tacaala ay ka fogeyso inay been sheegaan ama kibir iyo isla weyne ay gasho inay dayacaan xuquuq iyo waajibaad madaxtinimadooda ka dhalanaysa inay sameeyaan madaxtinimada awgeed wax ilaahay subxaana wa tacaala uu ka mamnuucay oo uu ka xaaraantimeeyey bal waxaad adigu sawirataa qofka ummaddan mas-uul u noqda oo diintooda iyo adduunyadooda labadaba mas-uulka ah oo wixii ka xumaaday ilaahay isaga uu weydiinaya yowma alqiyaama ee waajibkiisa ahayd inuu wax ka qabto wixii ka dayacmana ilaahay subxaana wa tacaala yowma alqiyaama marka la horgeeyo uu kala xisaabtamayo waa arrin culayskeedu intee uu leegyahay waxaynu biidni illaahi subxaana wa tacaala maanta halkan ka akrin doonaa axaadiid kooban marka loo eego axaadiida tirada badan ee rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu kaga hadlay culayska iyo halista ay leedahay inuu qofku mas-uuliyad qaado ummaddana madaxu u noqdo gaar ahaan qofku hadduu ka soo bixi waayo waajibka saaran iyo hadduu dayaco xuquuqda arrinta noocaasi ay ku waajibinayso xadiidaasi marka loo eego xadiida nebigu uu kaga hadlay masaladan in yaroo kooban oo aynu dadka wax ku xusuusinayna ayuunbay noqonaysaa nin kastoo leh waan isa sharaxaya oo arrinta noocaasiya u ordaaya oo dadaal ku bixinaya oo lala u gelaya oo ku dagaalamaya xoolihiisa ku bixinaya arrinta noocaasiya ayaynu maanta la hadlaynaa oo aynu xusuusinaynaa waxa uu ku dadaalayo waxa uu doonayaa culayska uu leeyahay nabiyuna maxamed calayhi salaatu wasalaam wuxu uhi sa muslim uu ku wariyey saxiixiisa ma min amiirin yali umuura almuslimiin uma laa yajhadu lahum wayansaxu lahum ila lam yadkul macahum aljanna qof kastoo arrimaha muslimiinta wax ka mida mas-uul ka noqda oo aan u dadaalin siduu xuquuqdooda iyo waajibaadkooda iyo danahooda iyo masaalixdooda u xaqiijin lahaa oon daacad u noqon diintooda iyo adduunyadoodaba jannada lama galo dadka muslimiinta ay markay jannada galaan isaga waa laga reebaa mas-uuliyadda uu ku dayacay xuquuqdii iyo waajibaadkii saaraa ayaa sabab u noqotaa muslimiintu markay jannada gelayaan isagu inuu ka hadho mar labaad bukhaari iyo muslim waxay wariyeen inuu hi nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam maa min cabdin yastarciihi allahu raciyatan yamuutu yowma yamuut wa huwa gaashun lahum ilaa xarama allahu calayhi aljanna qof kasta oo cid mas-uul looga dhigo mas-uuliyaddu mid weyn bay noqon kartaa oo qofku dad fara badan madaxu u noqdo mid kooban bay noqon kartaa oo xadiida qaarkood 10 qof qofka mas-uul ka noqda ayuu nabigu calayhi salaatu wasalaam
culayska ay leedahay uu sheegay oo uu ku baraarujiyey. qofka dad mas-uul u noqda oo dhinta maalinta ajashiisu ay gasho isagoo xuquuqdoodii iyo waajibaadkoodii diineed iyo adduunyaba aan gudin, ilaahay subxaana wa tacaala jannada ayuu ka xaaraantimeeya ilaa xarama allahu calayhi aljanna. waxaa looga jeedaa ghaashun lahum, isaga oo qishaya waxaa looga jeedaa wahuwa mudayicun lima awjaba allahu calayhim min ricaayati umuuri diinihim wa dunyaahum. ka dad madax u noqdo ajashiisu ay u timaado isagoo ah mid dayacay waajibkii ka saaraa arrimahooda diineed ilaalintooda iyo arrimahooda adduunyaba oo masaalixdooda dhowristooda. alxasan albasri wuxuu yidhi isagoo qiso xadiidkan la xidhiidho sheegaya, cubaydullaahi ibnu ziyaad ninkii la odhan jiray oo markaa amiira ayaa wuxuu booqday saxaabigii la odhan jiray macqil ibni yasaar oo hayo xanuunkii u geeriyooday aanu kaba kicinba. saxaabigaasi isagoo xaaladaasi ku jira oo aada u xanuunsanaya ayaa ninka amiirka ee soo booqday uu sheegay xadiidkan: inii muxadiuka xadiian samictuhu min rasuuli illah. amiiro waxaan kuu sheegayaa xadiiaan ka maqlay rasuulka calayhi salaatu wasalaam. low calimtu ana liya xayaatan maa xadatuka. haddaan isleeyahay waad sii noolaanaysaana xadiidkaa kuuma sheegeen buuri, laakiin waxaan isleeyahay xanuunkan ka kici maysin, marka waajib iyo mas-uuliyaddii gaadhsiinta ay saarayd ayaan gudanaya. mar kale wuxu uhi nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam sida bukhaariyo muslim ba ay wariyeen: kullukum raac wa kullukum mas-uulun can raciyatih. qof kastaba waxbaa loo diray, qof walba wixii loo dirayna waa la weydiinaya yowma alqiyaama isagoo ilaahay subxaana wa tacaala hor taagan. in allaha saa'ilun kula raacin can raciyatih wadayaca dalika am xafida buu nebigu mar kale yidhi. qof kastoo cid mas-uul looga dhigay waa la weydiinayaa ciddii mas-uulka looga dhigay waajibkii ka saaraa miyuu dayacay mise uu ka soo baxay. falimaamu raacin u mas-uulun can raciyatih. madaxweynuhu waa mid ummadda madaxweynaha u yahay la raacshay oo lagu waajibiyey masaalixdooda diineed iyo danahooda adduunyo labadaba inuu ka shaqeeyo. maanta sida aynu khudbado hore ku sheegnay, dadka madaxda ama madaxtinimada doonaya badankoodu inay gutaan iska daaya maba dareensanaa ummaddan diinteeda waajibka koowaad inuu ka saaran yahay. inay dadku diinta bartaan oo qofka muslimka ee madaxda u yahay ee sida uu u tukada aan garanahayn in arrintaasi isaga qiyaamaha la weydiin doono. dad badan oo madaxtinimada u ordaya maba dareensanaba, kay caqiyadu ka xun tahay, ka munkarka iyo xumaanta samaynaya inuu ka reebo arrintaasi uu kala dagaalamaa inay waajib ku tahay. dad fara badan oo madaxa ama madaxtinimada u ordaya maba dareensana. waxaanay ka muuqataa kuwa madaxda noqday marka ay faanayaan, bal waxa ay ku faanayaan idinku eega. markay ugu fiican tahay mararka qaarkood waxyaaba aan sax ahayn oo mabaadi kale ayaabay ku faanaan, laakiin markay ugu fiican tahay waxa ay ku faaneen waa arrimo adduunyo. wadaanu samaynay, biyaanu waxa weeyaan dadka u samaynay, caafimaadkaanu ka shaqaynay, waxbarashadaanu ka shaqaynay. inta badan maqli maysid iyagoo sheegaya waajibaadkii diiniga ahaa ee ummadda diinteeda ka saaraa waxay ka qabteen, iyada oo waajibaadka dadka diintooda ka saarani ay ka waajibsan yihiin kana wen yihiin kuwa dadka adduunyadooda ka saaran, iyadoo adduunyadoodana mas-uul ay ka yihiin. mar kale wuxu uhi nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam: maa min rajulin yali amra cashara famaa fawqa dalika. nin kasta oo 10 qof mas-uul ka noqda iyo wixii ka sii badan, ilaa ata allaha maqluula yowma alqiyaama yaduhu ilaa cunuqihi. wuxuu yimaadaa maalinka qiyaamo ilaahay uu soo hor istaagaa isagoo xidhxidhan
وقعنتيسو قورتيسا ay ku xidhan tahay فكه بره أو أوثقه إثمه وحارق قاسي كفرة يوم القيامة وناقو السمية الدنيا انتو تشوغي اما ضحضا هوها اما مسؤولك وكاها دادكاس مسؤولك وياهي اما وحا حارق كسي ادكيا كسي جيتشيا دنبقو قالي وليبا وكقالي ومدى مضحضا وياهي حوله ذو قاتي حقوق ذو الدين اما الدنيا وضيعي عدالة الردي وكما مولي ظلمي وقيستي كاسا حرقة كسيات كينية أولها ملامة مدحتني مدى بلو قيد وعنان وإذن كارك يددك مدح نقضى وحا كدا عاية وعنان كدا عيسى وعاي كدا عيسى وأوسطها ندامة نحن دون مرقو وإن بدانو مدح نقضى marka hore inay madax noqdaan aad bay u jecel waanay ku haliilayaan marka ay helaana way ku farxaan muddo markay hayaan ayaa xaalkoodu waxa uu noqday harageediga celiye maxay geey markay arkaan dhibaatadeedii iyo kuleylkeeda markaan aakhiraba la gaadhin intaan aakhiraba la gaadhin adduunyada culayska iyo kadeedka ay ku leedahay markay arkaan wa akhiruha khizyun yawm alqiyamah madaxtinimada qofkan xaqeeda gudin ayuu xadiidku u jeedaa aakhirkeediyo gabagabadeedu waa hoog iyo dulli aakhiro imaamu axmed baa wariya waana xadiid saxiix waad arkaysaan culayska ay leedahay xadiidku xataa wuxuu tilmaamayaa qofka xataa adduunyadiisa iyo naftiisa iyo qalbigiisa madaxtinimada iyo mas-uuliyaddu inay dhibaato ku hayso gaar ahaan qofka damqanaya ee andigiga xaggoyn markale wuxuu nabigu calayhi salaatu wasalaam sida imaamu axmed uu musnadkiisa ku wariyey bal u fiirsado xadiidka calaykum billaah layatamanayana aqwaamun wullu hada alamr anahum kharuu min athuraya wa anahum lam yaluu shaya xadiidkan wuxuu ka waramayaa dad adduunyada markay joogeen madax ahaa oo ilaahay subxaana wa tacaala la horgeeyay yowma alqiyaama sa xaalkoodu uu noqonaya waxay jeclaan lahaayeen inay ka soo dhici lahaayeen xidigaha urursan ee samada ku yaalla oo aanayse madax noqdeen haddii la odhaa laba arrimood kala doorta in samada lagaa soo tuuro oo samada ilaa dhulka aada soo wilaanwilato hawadaabuu qofku ku googo-aya soo maha intaan dhulba soo gaadhin hadduu dhul isagoo ishaysta soo gaadhana dee qof samada ka soo dhacay qofka gurigan ka soo dhacay ee dhula ku dhacay in ogna waxa gaadhaya qof samada ka soo dhacay maxaad malaynaysaa marka haddii la odhan lahaa hadda maa hadda way macaantay waa taa loo ordayo waa taa loo dagaalamayo waa taa dadka qaarkood dad ay u laynayaan waa taa laaluushka loo bixinayo waa taa loo dambaabayo laakiin yowma alqiyaama xaqiiqadeeda ayaa qofkii u caddaanaysa marka haddii la odhan lahaa maalinka qiyaame in samada lagaa soo tuuro iyo inaad madax noqoto ood ummadda mas-uul u noqoto labadaa kala dooro waxay dooran lahaayeen in samada laga soo tuuro waayo samada in laga soo tuuraa u dhib yar oo dee qofka naftiisi unbay dhibaata gaadhaysaa laakiin cid xuquuq u haysataa ma jirto laakiin markuu madax noqdo hadduu doono adduunyada intuu joogay waxyaabo badan oo nicamka adduunya ha helo laakiin su-aale intee leeg baa sugaya xisaab intee leeg baa sugaysa hadduu xuquuqdii iyo waajibaadkii dayaca ama dulmi uu sameeyey ciqaab intee leeg baa ilaahay subxaana wa tacaala horti ku sugaaya saasay u culus tahay walihaada dadkii iimaanka lahaa alla ka cabsiga lahaa aakhiro xusuusnaa xaqirnaanta adduunye iyo qiimo daradeeda garanayay marka aakhiro la garab dhigo inay doontaan iska daaye haddii lala soo doonto oo la yidhaahdo madax noqda way diidi jireen qaarkood haddii la idhahdo garsooro noqo way dhuuman jireen oo way ka dhuuman jireen ninka madaxda ah qaarkood waxay odhan jireen waxaan amiirow kaa codsanaya arrinta noocaasi inaad iga cafido culayskeeday garanayeen
baashan waxaa ku carara sida xaaladdu ay u badan tahay waa dhici kartaa qofka xaaladaha qaarkood inuu is yidhaahdo adiga mooyaane cid leh sifaadkii uu madax ku noqon lahaa ee ummadda diinteeda iyo adduunyada ku ilaalin lahaa ma joogto laakiin sida imika innaga inooga muuqato tartanadan madaxtinimo ama madaxtinimada loo ordaayo waxay xaaladda dadkaasi u badan tahay dadka qaarkood waa dhici kartaa niyo wanaagsan inay leeyihiin waa isleeyihiin meeshaa tago waa hagaajiya laakiin in badan calaamadaha ka muuqda waxay muujinayaan inaanay culayskeeda dareensanayn ee dheef adduunyo uun inay ka dugsadaan oo ay ku gaadhaan inay doonayaan ilahay baynu subxaana wa tacaala weydiisanaynaa inuu ina waafajiyo wixii adduun iyo aakhiraba ina anfacaya wixii aakhira ina dhibayana ilaahay subxana wa tacaala inuu inaga badbaadiyo aqulu qawlii hada waastaqfiru llaha liya walakum alxamdu lilahi rabi alcaalamiin walcaaqibatu lilmuttaqiin walaa cudwaana ila cala alظaalimiin sala allahu cala nabiyina muxamadi wacala aalihi wasaxbih waslama tasliima kaiira wuxuu bukhaari saxiixiisa ku wariyay can abi hurayra ana nabiya calayhi الsalaatu wasalaam qaal inakum sataxrisuuna cala alimaara waxaa dhici doonta ummadaydu inay ku dadaalaan sidai ay madaxu noqon lahaayeen wasatakunu nadaamatan yowma alqiyaama imaarada iyo madaxtinimada loo ordaya lagu dadaalaya murugaa ka dambayn doonta maalinka qiyaame fa nicma almurdicatu wa bi'sa alfaatima nuujisadu wanaag badanaa naaskadaysaduna xumaan badanaa waa nuujiso oo madaxtinimadu naas macaan bay leedahay adduunyada marka la joogo la jaqo laakiin qofku marka uu ka dego amaba se geeri ay ka kaxaysa ilaahay la horgeeyo ee wixii xuquuquu ku dayacay iyo dulmi wuxuu ku sameeyey madaxtinimadaasi la hor keeno markaasay xumaanteedu soo baxaysaa wuxuu wariyey alimaamu axmed iyo tirmidi can camr ibni mura anahu qaala limucaawiya saxaabiga camr ibnu mura wuxuu ku yihi mucaawiye oo markaa amiiru lmuminiina inii samictu rasuula اllahi yaquul ma min imaamin yagliqu baabahu duna dawi اlxaajati wاlkhallati wاlmaskana ma jiro qof madaxa oo albaabka ka xidha dadka baahan kuway baahidoodu sii daran tahay iyo kuwa masaakiinta ah ilaa aklaqa allahu abwaaba الsamaai duna khallatihi wa xaajatihi wa maskanatihi hadduu isagu sidaa yeelo dadka albaabka u ka xidho oo dadkii ay sooba gaari waayaan gaar ahaan inta baahan ee jilicsan cid waxa weeyaan baahiyahooda ay kala xidhiidhaan oo isaga usoo gudbisan aanu u samayn ilaahay subxaana wa tacaala albaabada samada wuxuu ka xidhaa ninkaa madaxdaa baahidiisa macnaa hadduu ducaysto xataa ducadii ilaahay ka aqbali maayo waayo isaga ayaa dadku mas-uulka ka albaabada ka xidhay oo baahidoodii inuu ka jawaabo isaga ayaa diiday saxaabigii mucaawiya ee amiirkaa markuu xadiidkaa maqlay wuxuu uhi raawigu fajacala mucaawiyatu rajula calaa xawaaij innaas mucaawiya radia allahu canhu nin dhan buu u xil saaray dadka baahiyahooda dhado halkaa xafiiskaa fadhi dadka baahiyaha qaba kuwa dulmiga tirsanaya ha kuu soo gudbiyaan oo adiga ha kusoo gaadhsiiyaan kadibna aniga iisoo gudbi waxaa abu daawuud wariyey xadiidkaa xadiid ku macno dhow faxtajaba duuna xaajatihim wa khallatihim wa faqrihim ninka ilaahay dad madax uga dhigo oo albaabada ka xidha baahidooda daran faqrigooda ixtajaba allahu yowma alqiyaama duuna xaajatihi wa khallatihi wa faqrih ilaahayna maalinka qiyaame wuxuu iska xijaabaa addoonkaasi baahidiisoo ilaahay kama jawaabo wa cinda axmed can mucaadin radia allahu canhu qaal man waliya min amri الnaasi shayئa faاxtajaba can uli الضacfa wاlxaaja اxtajaba allahu canhu yowma alqiyaama xadiidkan wuxuu si gaara uga hadlaya dadka kuwa jilicsan dadka maalqabeenkaa kuwa magaca leh kuwa madaxda ah inta badan qofka madaxda ama mas-uulka wadda ay u maraan bay helayaan laakiin dadka jilicsan cid u geysan aan helahayn ama baahidooda u gudbisa aan helahayn kuwaasi way dayacmayaan wuxu uhi rasuulku calayhi salaatu wasalaam qofka wax ummadda arrimahooda ka mida mas-uul ka noqda
hamoodin ya cabdallah madaxweyne iyo wasiir iyo nin baarlamaan ku jira ama golo deegaan iyo kuwaasoo qura inay axaadiidani la hadlayso. axaadiidani waxay la hadlaysaa qof kasta oo mas-uul u noqda dad muslimiina tiradoodu haba koobnaato, ha noqdo maamulaha madrasadda ama iskuulka, ka shirkadda mas-uulka ka ah, haddii waashmaanka iyo darawalka iyo inanta meesha nadiifisa iyo kuwa taagta daran ay gaari kari waayaan oo albaabada u ka xidho oo danahooda ay u sheegan kari waayaan, cid ay kala xidhiidhaanna aanu u samayn, isaga laftiisu wuu soo gelaya. qof kasta oo mas-uula ayaa soo gelaya. faxtajaba can uli dacafati waalxaajati, oo iska xijaaba albaabada ka xidha kuwa taagdarada iyo baahida u saaxiibkaa, ixtajaba allahu canhu yowma alqiyaama. ilahay baa iska xijaaba maalinka qiyaame oo baahihiisa aan ka jawaabin. waana xadiid saxiixa. xadiidaasi qof kastoo iimaan leh waxay ku kalifaysaa inaanu ku dadaalin dadka inuu mas-uul u noqdo ilaa xaalado gaara oo biidn illahi subxana wa tacala khudbadaha soo socda aynu ku sheegi doono mooyaane. qofka mas-uul noqdayna arrinta noocaasiya gaadhayba waxay ku waajibinaysaa in dadka muslimiinta ah masaalixdooda diineed iyo masaalixdooda adduunyaba si dhow inuu ula socdo, isla markaa waxna uu ka qabto oo baahiyahooda uu ka jawaabo. biidn illahi subxana wa tacala khudbadda soo socota waxaynu kaga hadli doonaa masalada ku saabsan ma bannaan tahay qofku inuu madaxtinimo doonto uu idhaahdo madaxa layga dhigo, shareecada islaamku maxay ka qabtaa. ilaahay subxana wa tacala hayna gaadhsiiyo, intaynu nina ilahay nagu anfaco. allahuma salli calaa nabiyina maxamed wacala ali nabiyina maxamed kama sallayta calaa ibrahima wacala ali ibrahim, baarik calaa muxamedi wacala ali muxamed kama baarakta calaa ibrahima wacala ali ibrahima fi lcaalamiina inaka xamiidu majid.